howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada booliiska gobolka Bari ee Puntland iyagoo kaashanaya laamaha sirdoonka maamulkaasi waxa ay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku qabteen gaari lagu soo qariyay hub iyo saanad military oo sharci darro ah loo soo geliyay magaaladaasi. Saraakiil ka tirsan laamaha amniga Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in gaariga noociisa uu yahay iskaroge lagana helay garaash lagu dhex qariyay gaariga kaas oo ku yaala gudaha magaalada Boosaaso kadib markii la helay xog ku saabsan gaarigaasi in uu ku dhex jiro gudaha magaalada si gaar ah garaashka ay ciidamadu baritaareen. Ha yeeshee ilaa haatan lama oga halka loo siday hubkaasi iyo sidoo kale cidda markaasi kaxeynaysay gaariga, balse laamaha amniga Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in gaariga ciid kor looga soo buuxiyay si lagu dhex qariyo hubka iyo saanada military ee saaran si markaasi loogu fuliyo qorshaha loo soo geliyay gudaha magaalada. Sidoo kale saraakiisha warbaahinta la hadasha ayaa sheegay in ay xog ka hayaan cidda mas'uulka ka ah gaariga iyo meesha loo waday hubkaasi isla markaana baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doono. Waa sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga ee u ramay warbaahinta. Howlgalkan ay si wadajir ah u fuliyeen laamaha sirdoonka maamulka Puntland iyo ciidamada booliiska gobolka Bari ee Puntland ayaa ku soo beegmayay xilli dhawaan Boosaaso ay ka dhaceen dagaallo u dhaxeeya ciidamada Puntland oo dhinac ah iyo sidoo kale ciidankii BSF gaar ahaan agaasimihii xilka laga qaaday isla markaana deegaankaas dagaal ku dhex maray labada dhinac. Cabduqaadir Maxamed, wararka Somali People TV, Muqdisho.